Salaam Allah calaykum asxaabi isku soo noqosho wanaagsan halka aad fiidiyogan ka daawanaysaan waa YouTube-ka Dr. Hashi Network. Fiidiyogan gaaban galabta wuxuu daba joogaa fiidiyowga axaddii hore aan duubay marka aan ka hadlayay cirba xanuunka oo cagta hoosteeda iyo ciribta xanuunada ku dhaca oo loo yaqaano plantar fasciitis. Isla fiidiyowgaas markii aan duubay oo aan ka hadlayay waxaan mention gareeyay ama aan idinla wadaagay inay jiraan wax loo yaqaano differential diagnosis oo ah haddii aysan plantar fasciitis ahayn maxay kaloo noqon kartaa xanuunkaas cagta ku dhaco lagu qalday sida lagu kala saaro. Xanuunadaas waxaa ka mid ah xanuunka loo yaqaano Mertes neuroma. Marka oo fiidiyowgan gaaban uga hadli doono isaguna cagta ku dhaca maxay ku kala duwan yihiin, waa maxay Mertes neuroma. Weligaa ma maqasho xanuunka neerfuhu inuu cagta ku dhaco? Neerfaha inta badan ama sayaarikada iyo loo yaqaano dhabarku ka yimaadaa jilibka iyo halkaasuu maraa, laakiin weligaa ma maqasho inuu cagta ku dhaco oo cagta lafteeda xanuun neerfa leer uu ku dhaco. Fiidiyowgan aad uga bogan doontiin maantay. Soo dhawaada mar kale. Mertes neuroma waa inflammation amase neerfayaasha cagta oo waxa waaye qaybta kore oo cagta qaybteeda kore iyo faraha iyo qaybta hore ah neerfayaasha yaryar oo ku jira waxaa dhacaya tissue-ga ama macnaha hilibkaas iyo muruqahaasa teg noqonayo adkaanaya. Markay adkaadaan neerfayaashii faraha dhexdooda marayay ay isku riixayaan, isku iskaraynayaan. Markay isku riixaan waxaa dhacayda inuu nervigii ama inflammation ama uu galo ama uu large noqdo laftiisii. Marka kadibna halkaas xanuuna ka dhacaya. Marka sidee uga duwan tahay plantar fasciitis? Plantar fasciitis dhowr qaybood ay uga duwan tahay. Plantar fasciitis waxay kasoo bilaabataa ciribta waxayna u badan tahay cagta hoosteeda. Midaanu qaybta cagta qaybta hore ay u badan tahay waana faraha iyo faraha dhexdooda wey. Faraha iyo faraha wabka yaryarka u dhexeeya faraha lugta u dhexeeya u badan tahay waana qaybta kore. Tii hore cagta qaybteeda hoose xanuunka inta badan laga dareemi jiray, tan qaybta kore laga dareemo. Maxay kaloo ku kala duwan yihiin? Tii hore markaad xoogaa fadhidood nasato unbaa cagtu aadan cagta dhulka dhigi karin, markaad subaxii soo kacdo oo kale aadan cagta dhulka dhigi karin. Mertes neuroma waxay uga duwan tahay marka aad nasato ama aad jiifto iyo waxaas oo dhanba xanuunba male. Markaad ama ordo ama socoto ayada dhaqdhaqaaqa u daran, dhaqdhaqaaqa midaan u daran oo dareemaysaa inay maaragtay. Waxay kaloo uga duwan tahay markii symptomka la sheego xanuunkeedu waa sharp, qodxa iyana inay ku mudmudayaan moodaa. Waxaa waaye burning iyo gubayda cagtu inta badan socksku hadba qofku iska bixinaya wuxuu leeyahay waxbaa iigu dhex jira, waxbaa i mudmudaya. Waa neerfayaal ku ordaya cagta faraha hore qaybtooda qaybtaas. Marka waa uga duwan tahay tii hore. Tii hore wax meel oo gooniyo loogu soo hagaago markii la riixa la dareemayo ahayd. Midan faraha hore oo lugta farahooda dhexdooda oo dhan xanuunka ku ordaya. Marka suulka dhinaciisa laga soo tiraayana wuxuu u badan yahay qaybta farta afraad iyo farta saddexaad inta u dhaxaydu u badan yahay dadka. Marka calaamadihiisaas gubashadaas iyo naam inay marmarka qaar lugtu noqoto iyo inuu qofka in sokska wax u galeen uu dareemayo maanta oo dhan qodxa yaryar iyo wax ku ordayaan, waxyaalahaas uu dareemayaa. Marka ay noqoto kooska iyo waxa maaragtay oo sababa markii ay noqoto waxyaalaha ugu waaweyn exactly waxa sababa lama yaqaan, laakiin waxyaalaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah waxa maaragtay tight shoes dadka xirta kabaha ku dhegan waqtiga dheer xirta iyo high heelska maaragtay gabdhaha kabaha cirbaha u dheer yihiin xirta, sababtoo culayskii loogu talagalay inuu ciribta fuulaa cagta qaybteeda hore fuulayo waana meesha neerfayaashaas ay ku jiraan. Waxyaalahaas oo kale waxaa kaloo ka mid ah waxyaalaha sababa sportiska bootinta iyo dadka cayaara oo dadka bootinta cayaara iyo sportiska noocaas iyo cayaara iyo orodka iyo dadkaas dadka lugtoodu ay falaadka tahay oo ay dhulka ku dhegan tahay. Waxyaalahaas oo dhan waa keenaan. Sidoo kale previous injury inuu jab iyo maaragtay waxyaalaha la midka jab iyo waxyaalaha midka inay lugta hore u soo gaareen iyo lugtu inay rogmatay oo ankle sprain iyo waxyaalahaas ay dhaceen. Waxyaalahaas oo irritation ku sameeyaan oo neerfayaashana way kiciyaan. Markay noqoto diagnosiska iyo sida lagu ogaado xanuunada kale looga saaro medical history, tusaale ahaan inuu qofku sonkor qaba iyo waa la weydiiyaa. Dadka sonkorta qaba marmarka qaar neerfayaashaas lugta cagta hore naamay noqdaan oo way u ekaadaan kuwan. Xanuunkaas sidoo kale markuu qofku nasto inuusan xanuunkan qabin markuu socdo historyga qofku uu kuu sheegayo physical exam in la taabto meelaha neerfayaashaas ay ku jiraan dhakhtarku uu riixo ogaado. Waa multiple of them, hal neerf ilaa maahan.
ultrasonka waa la saaraa oo tendon iyo inflammationka iyo areas u dhow waa lagu ogaadaa, laakiin definitive diagnosiska ugu fiican waa MRI-ga oo neerfayaasha laftooda inay teg noqdeen, inay enlarge noqdeen, inay barareen, waxyaalahaasoo dhan u sheegaa. Treatment optionska marka laga hadlayo conservative care-ka sida tii hore lagu bilaabo oo ah inuu qofku xoogaa maaragtay inuu nasto, sports hadduu hayo uu ka nasto, inuu kabaha iska bedelo oo maaragtay hadduu kaba dhaadheer xira jiray inuu joojiyo, kaba tayda hadduu xira jiray inuu kaba xoogaa falaada u xirto. waxyaalahaasoo dhanu waa conservative care leer inuu physiotherapy aado, waxyaalo kulkulul iyo baraf iyo waxyaala laga saaro. waxaasoo dhan markay ku soco weydo stepka labaad waxa waaye waa anti inflammatory medication oo inflammationka yareeya iyo bararka iyo waxyaalahaas la tacaala in la siiyo. hadday kusii soco weydo cortisone injection baa lagu dhiftaa oo cirbadahaas oo maaragtay steroid injection kaasa lagu dhiftaa, dadka qaar u shaqeeya, intooda badan u shaqeeya. marka keerkeeduna waa sidaas. marka haddaan soo koobo, neerfa xanuunka leeraa cagta waa ku dhaca, mortis neuroma leeraadaa, qaybta koro cagta uu maaragtay korkeeda doorsamka leeraada uuna u badan yahay, faraha dhexdooda unbuu ku orordaa oo xanuunkaas laga dareemaa. sidaasuu plantar fasciitis cagta hoosteeda ahaa saasuu uga duwan yahay, labadubana cagtay ku dhacaan. marka waa sidaas, plantar fasciitis iyo mortis neuroma labaduba waa dhici karaan, way isku egyihiin, way isshabahaan, laakiin waa kala duwan yihiin. oo midkan waa xanuun neerfa, waa neerfa cagta ku dhaca haddaan si kale kugu soo gaabiyo. marka videoga halkaasaan kusoo gabagabeynayaa. aad iyo aad u mahadsantihiin sidaa u like gareydeen oo u share gareydeen videoga qaybtiisii labaad, qaybtiisii koowaad, qaybtaana waa qaybtiisii labaad. qayb saddexaad isla cagta xanuunada ku dhaca ahaan idinla wadaagi doona oo Achilles tendonitis leerada ama faysha dheer oo xariggaas dheer oo faysha meesha uu lafta ka suran yahay inuu inta ka jiido maaragtay dadka qaar oo halkaas xanuun ka keena. qaybta saddexaad ay noqon doontaa insha Allah. isla socosho wanaagsan.